runtii boolisku markay sameynayeen baaritaanada waxyaabaha ay dhahayeen waxaa ka mid ah inuu qofkan yahay oo dilkan geystay qof dheer oo laf weyn oo laga yaabo markaas inuu daroogo isticmaalay because gabadhaani iyadoo sideeda qof iska laf weyn ah in qofkan uu yani qabto oo weygaas u dilo waxay noqon kartaa dhaheen ama sabab ay u badan tahay inay tahay qof yani nin rag ah oo xabad weyn oo aragtay iyo waxa kale ku soo dareen yiraahdeen qofkani inuu ahay qof rabay inuu ka aarkoosto gabadhaani Kitty naanti qisadani hano bilaabto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سكسونا قدونا كسولا لذيذة وانا ولاشين هذني channel كذي داوني سدوا channel كيني هذن online هذا نوع سبتي داو سولو قاعد مفرد سبسكرايب نقولي رجلي فيديو قاعد لايك سارة لايك فربدان نسكسار فري ما هنو سارة لايك سين شير قري فاميلي سحبت هذا لو ذاك سوي من نقدر هذا فاميلي حي سؤال أما رأيي قبتنا قيبته كومنت يقول راب سين شير قري فاميلي سحبت هذا لو ذاك سبسكرايب هذا سعر نسكسار وايد دعوة محمد قاعد بس سكسار إن شاء الله معلومكم ما waqtigaaga qaaliga hadii aad videogan maanta aad daawanaysid qaybta labaad videogan ku xiga ayaa soo dhigi doona laakiin hadii aad future-ka ama beri ama mustaqbalka aad daawanaysid qaybteeda labaad qaybta commentiga ayaan pin ku qaban doona halkaas ka soo daawo maanta waxaan joognaa UK magaalada Liverpool yiraahdo UK da waa magaaladeedii Soomaaliya aniga ayaa marti ii tihiin horta marti ma noqon kartiin maanta maadaama magaalo kale aan joogin Maadarealo yes waa la kara in aan marti because gurigeyga saxda ah halkaas waydada inta joogo liftigaas oo waa fiirin way almuhim hanoo bilaabato magaalada Liverpool qisadan waxaan waxay dhacday 1992 markii taariikhdu ahayd qisadan waxay ku socotaa gabadh la yiraahdo Kitty Rankler yaa waaye aan idin baro marka Kitty Rankler waa xawaayda ahaan gabadh jirto 18 jir weeyaan Kitty marka asal ahaanteedu waxa waaye dabcan dalkaas dadka iskala gabadh British ay ahayd hooyadeedii aabeen ayada kaliya ay lahayn wax family ama sad walaalo kale ma aysan lahayn Kitty marka hadii aan macluumaad yar oo kooban sida yani barnaamij sheega intaan qiso crime soo raadinayay waa qofkii ugu amaanta badneed yani website-ka Zaid ayaa looga amaanay yani Zaid Soomaalidu waxay dhahdaan amaan geeriya ka xigta ma okay sida la sheegay waxa ahayd qof aad u wanaagsan oo qalbi wanaagsan oo furfuran oo dad badan asxaab badan leh la dhigi karo magaalada ee deganeeda ku soo kortay ku soo barbaartay dabcan qofka ugu caansan inay ahayd okay waxa kale oo la sheegay hadda aniga daawaday asxaab horta ma leeyahay asxaab waa leeyahay laakiin haddaan tiriyo kama badanayaan 10 qof adiga asxaabtaada meeqa ku xisaabin lahayd okay gabadhaani sida la sheegay asxaabteedu waxa lagu qiyaasi karaa plus content yani meesha ay tagto dad ay taqaana meesha ay tagto dad ay taqaana kadib gabadhaani marka da'deedu markay qisadu ku dhacaysay 18 jir ayay ahayd gabadhan markii ay ka soo baxday high school-keeda dabcan dadka qaar jaamacad ay tagaan dadka qaar oo mustaqbalka meel kale ay ka raadiyaan gabadhan marka mustaqbalkeedu wuxuu ahay inay koo guri gadato number 1 in ay guursato waayo wiil ay aad u jecleed ayaa jiro ay guursato wiilkaas labana guri gadato mar saddexaadkana ay korsato xayawaanada guriyaha lagu heesto okay asxaabe baamidin sheegay hadda magaaladan deganahay dad waxa jiro waxaan arkaa ay wataan aygu intuu u orda aygi qofka waxa marka qaar waxa arkaysa qofka iyo aygu wataaba ka jir weyno eeyaasha qaar aan marka arko naftaaba iga dhacda cabsi intuu ayahayna waxa u muddo waraabe soo socdo waraabe horta ma laf weeyaan waraabe ma laf weeyaan oo soo sheega almuhim yani waxa waa aragtay mahano ay weyn oo kaskiisu weeyo wajigu intaas dhayo lion uu leeyahay saas level qaadiya ma fahanteen markaasuu ninka watan xiita way markaasuu intuu uga ordaa markaasuu saan soo jiida xidada intay kuwan korinayna ku imtixaamayeen balme ilma iska dhashtaan ilmaha bari loo aayo dadimada ku duubanay marka gabadhaani riyooyinkeeda waxay kamid ahayd inay korsato xayawaanada guriga okay
kadib waxay u shaqo tagtay saaloon heerka ah oo saaloonka timaha dumarka loogu qurxiyo koorsiyay soo qaadatay markaad sida la sheegay dadka ay la shaqaynaysay waxay ka dhigi jirtay ama se weli isticmaali jirtay dad family oo kale yani managerkana dee dabcan qofka markuu dhinto qof waliba oo hal maalin xataa qof iswacan waa la wareystaa managerku wuxuu sheegayaa inay dadka shaqada oo dee zimala oo shaqada ay ula dhaqmi jirtay qof oo family oo kale aduu qof wanaagsan yaan hadal idinku duhalin anaa hadda aqriskeeda kusoo noole kadib gabadhaani boyfriendkeeda sida la sheegayo yani waxay ahaayeen dad jaceylka yaraan kusoo bilaabay ayay ahaayeen kadib boyfriendkeedii si lama filaan ah ayuu gabadhii uga tago u liifgareeyey weliba liifgareyntaas ama se liifgareen waa inuu ka tegay yani ka tegitaankana sababta ra-iisiga looga dhiga waxay tahay website kusoo qoraayo in uu ninkani gabadhan ku jiidgareeyay ama se uu qayaanay oo de naag kale iyo afaaro kale kadib gabadhan de maadaama ninkan uu kamid ahay waxyaabaha ahdaafteeda oo nolosha rajooyinkeeda kamid ahay aaday ugu xumaatay dabcan de qof horta sideedaba dadka qofka ay jecel yihiin hela noloshan waa dhif iyo naadir dad waxaad arkaysaa yaraantoodii isjeclaa oo yani la dhahayo hebel haddii lasoo hadal qaado heblaayo la xasuusanayo oo haddana noloshu ay kala geyso so dad waliba nasiib uma lahan qofka uu jeclaa inuu helo ilaa de qof nasiib ilaahay siiye maahane kadib gabadhii ninkan markii uu ka tegay waxay gashay ikti'aabay dhahaan aniga waxaan dhihi karaale anaga ikti'aab ma yeelan karno because yani waa yeelan karnaa laakiin haddana anaga de dad muslaana iimaanaan leenahay oo qofku marka uu dhibaato ama culays uu dareemo ilaahay buu dhankiisa u ordaynaa sijaajada qaadna waa dukanaa laba ragcadood ilaahay marka wax niyadaad ku jiro waa sheegtay qofku waa nafisa laakiin dadkan ma yaqaana almuhim gabadhii waxay gashay xaalad ikti'aab ah ama se depression oo kale oo waa aragtay inay cunto cuni weydo inay 9 oynayso inay guriga ku xabisantay 9 qolkeeda ka soo baxaynin xataa waalidiinteeda hooyadeeda iyo aabeed inaysan hadalkii dhanaaba ay ka joojisay oo ayadoo hi kitty morning la dhahayo ay u jawaabi weydo waalidkeedii ayay gaadhay gabadhaani aad ayay u jeclayd ninkani oo de si lama filaan ah ayay uga tagay okay kadib saaxiibteed ayaa de dabcan best friend iyo friend waa kala duwan yihiin best friendkeedii ayaa guriga ugu timaaday arno yahay waa reasonka gabadhaas loo hide garay ama se qadiyada saaxiib leh loogu soo koobay magac sawir loo soo dhigay arno almuhim malaha saan u fahmay qadiyada shaqo kuma aysan lahayn okay saaxiibteed ayaa u timid waxay ku tiri party ayaan tagaynaa ama se meel oo de dabcan party ama se xaflad ayaan tagaynaa oo dad badan ay isugu imaanayaan oo asxaabteena kamid ah soo asxaabtaas adina waxay ku noqonaysaa jawi bedelasho de dabcan qofku markuu uu xaalad yaro adag bani aadanka dhan anaga dhana xaalad adag ku sugnaan karno qofku markuu xaalad adag galo wuu u baahan yahay inuu hawo gadis samaysto so waxay ku tiri hawo gadis ay ku noqonaysaa asxaabtii hebelo heblaayo oo aad joogaan ina wadi xafladaas sida lagu qiyaasay ku dhawaad 70 qof ayaa joogay xafladaas waxay dhacaysay 1992 bishii 7 ee July 4 ayay dhacday xafladaasi okay alay xafladii ayay baxeen way tageen sida ay saaxiibteed wareysiga ay ku sheegayso kitty dadka xaflada jooga qaarna way garatay waliba badankooda ma dhihi karaa way garatay inta kalena ma aysan garanin okay kadib xaqii baa la baashaalo kii qamra cabaya kii iswalaaqay kii kiniikinayo almuhim xafladii waxay bilaabanaysay 7 pm ayay bilaabanaysay amse 7 habeenimo ama hal saac habeen saa u fahanteed yani dadaan fahmaynina jiro marka raal noqday u qaata ma ahan xumaan kale 7 habeenimo ayay xafladu bilaabanaysay ilaa iyo waxay dhamaanaysay 4 am 4 subaxnimo ama se waqtiga salaada subax aan dukan anaga muslimaad ama waqtigaas ay sheega salaada subax ayay dhamaanaysay xafladu okay xafladii markii ay dhamaatay dadkii meesha xaflada goobta xaflada joogay dhan waa ay kala tageen oo qof waliba gurigiisu aaday aan ka ahayn kitty iyo saaxiibteed run ahaantii meesha ay tagtay ma la soo bandhigo saa idin sheega gabadhaas informationkeeda waa loo qariyay laakiin sida yani macluumaad yar oo kooban aan qisadan ka helay oo website ku qoray waxa waaye kitty iyo gabadhii in ay midna inta u dhaqaaqday tan kalena inta ay u dhaqaaqday kitty marka sida la sheegay oo CCTV-yada ama se kamerado ay qabtay waqtigaas
inkastoo sida maanta ay wax loo heli karo aan loo heli kareynin la qabatay kamaradu ay qabteen waxay ahayd inay kaligeed ay socoto waliba socodka kale meesha ay xafladu ahayd iyo meesha ay tagtay waxa u jirto u dhaxayso 40 daqiiqo oo gaari la wadaayo يعني انت ما يكون على لوجيس 40 دقيقة بانتهى لكن جاري قفكم مركو وضعه 40 دقيقة وصعنايو 85 مايل 20 مايل ميلهاس قياسا عن تيدا ويجاري كرت هدي بكسي بدنين اوكي قبل مركا سيدي هبينكي حفاملي جينا كسو لابتي هذا طبعا قبل حفلات تسوهي نيسا ما إيسا سوهيني صباح نما دي دمبي او دي 4 AM مركي اد around 10 كي صباح نما افرصح صباح ايا لهالي كيتي بيت كيدي oo dad area ka dhawaa ayaa arkay booliska markii la qaaday waxa isla markiiba waa la gartay family-geeda ayaa loo wacay kiiti marka weega ee loo dilay 1 iyo 2 iyo 3 ma sii dhigi karo because maantii qof yani ma fiicnayna ma sii explain garay laakiin gabadhaani mindi ayaa lagu dilay waliba mindida ayaa kale waxa loo yani korkeeda gaadhay 32 jeer ayaa waxa lagu duray maalayga mise lagu muday ma mindi la geliyay durid waa saan le ma horto بالخير سو شيء قعنت ويبنعون يسار إلى غيرك ما فهمتي دوري وحن أفهم سنة إن هذا عربض عليه دوري وحلي دوري ليكس وصار لا ما دوري واحد دوري يعني one time ما هو أمولكم مودي لكن الجلية واي ما هو أوكي من دي الجلية وقال مركب من دي الجلية عندها من دي ده ترى ده الجلية وحي هاد الصوت وبالخير سو شيء بسم الله الرحمن الرحيم waxay ahayd maxaan ku dhigay mindida tirabo 32 jeer ayaa mindida la geliyay waliba qatarka meydka baarayay wuxuu sheegay gabadhani xataa ayadoo dhimatay oo naftu ay ka baxday in mindidan lagu waday oo laga joojinin okay booliisku markaa waxyaabaha yani ila way fikirayaan dad dambi baarayaal waxaan ku takhasusay ayaa jiro waxay yiraahdeen gabadhaani iyada isdishamal dhig karto qof asaga isdurduraay ma jirto laakiin waxa dhici karto inay ahayd dilkaani dil argoosasho aniga hodan ahaanteed xataa waxaan dhigi karaa inay tahay dil argoosasho sababtoo ah yani qofkan mar 2 3 10 badhe durtay mudday okay waa dhintay maxaa ka rabtaa meed waayba ma iska xilin kare farma dhaqaajin kare waaba ka tagtay waaba u dhamaatay maxaa laga dila laakiin waa lagu sii waday okay kaamiradaha la fiiriyay kaamiradaha waxay ku ekaayeen waliba 99-meeyadiina yani sida maanta adduunka u hormaray ma u hormarsaneen wadooyinka qaar waxaa jirto ay kaamiradaha ku dhigsaneen okay marka gabadhii waxa la isku wadayay area-dii meydkeeda laga helay in la weydiiyo gabadha hadda ka hor ma aragteen xalay toolo kale qof ay la socotay qof meeshan marayay male waliba waxa ka sii daran waxay tahay qofkii markaas dilay gabadhaani in uu ka tagin wax daliil hal xataa wala raad aw la xasuusatay farahan kabaha qofka wax ka dhaca wax leen uu heli jiray ma oo gabadha laakiin qofkii dilay waa la waayay mindidii xataa waa la waayay sidii ayaa marka gabadhaani la yiri qofka dilay inuu yahay oo loo badiyay inuu yahay nin rag oo yani ya saan oo 6 bag hada la bariga 6 bag malkasay laakiin xabad weyn oo nin xoog leh la gabadhan dhulka dhigi karo oo saan u dili karo kasoo tag waxa dhacday in markii taariikhdu 2 sano ayaa gabadhan qadiyadeeda ay ahayd qadiyad maftuux oo yani لو يسيا قفكي قالي سيدي أي وحكون نقطة قضية فرن لكن تاريخ مركي تكون سجال بقى شني أفرتي أيا وحا إسبتلي قبل لي هذا مري قبل لي هذا مجعية سلامادي أن ماري أيا إن سكول ماشى سكويا لمجالات ليفربول أو مجعية لسي شيء ما دام يعني سمعت سكول كسيلو إلى عليه أيا وحال لقصة وعي بوليس قول يري قبرير أيا ماشى لبودري أو لماتي مركي هان ضد كدي أرضي يريد الجوتي ضد كي معلمين تنحدنتي وحكوت المعلمة لا إني تاي قبر لماتي أو نفتو كبحدي المهم بوليس كي بعدين قبري أن ماري أيا لوضي دكتور كي برجع هوسبيتال كلجا هوسبيتال دكتور كي مركز عنده كوه كيس كده وحويري قبرني هدي أي دمتو وحاوي قف نصيب
leh because sida loo dilay ama se wayga loo dilay ma ahan way uu qof waliba ka soo laaban karo ama se uu ka soo noqon karo waayo meelaha laga duray halka mujida kala aan halka xooqana kala xanta adu waxa u taqaani soo halka waxa weeyaan saan meel waxa jirta inta saan dhaxdo dhaqdhaqaaqdo meeshaas ani kala xana oo qan meesha u taqaani soo kala xanta garba waliba badana dhabarka weeyaan iyo xabadka hal laakiin dhabarka iyo kala xantaas ayaa ugu darneed Anne Mary ilaahay waa qadaray markay ku jirtay ku dhawaad week kooma ay ku jirtay way soo laabatay gabadhii laakiin gabadhii yar markay soo laabatay yaani aan ka wada soo laabatay soo caafimaatay soo reysatay oo gurigoodii la keenay waxay bilowday gabadhii yar inay riyooto waa la weydiiyay dabcan markay roonaatay kadib oo police waa wareysanaya waxay tiri qofku face mask ayuu watay tiri mindina uu watay qof rag iyo dumar wuxuu ahaana waan kala garan waayay tiri because wuxuu watay dhar saan camal holof so qof hadda maanta holofka kale hada holofkan saan marka aan dhaho waa la dareemaa inaan qof dumar ahay laakiin holof yani jaaka weyn jaaka qofku markuu watane adu waa kala kasi waayay gabadha yarna gabadha ahaan teenager ayay ahayd meesha lagu dilayna waxa waaye isla meeshii lagu dilay Kitty Lanker hadii aad xasuusataan gabadh yareed ee Kitty Lanker meeshii lagu dilay waaye oo 40 daqiiqo xafladda u dhaweyd gabadhaana marka oo isbitaalka iskuulka hodan ay qof soo galay si loo ogaan waayo iskuulada markaas yani adduunka Soomaaliya horumarsay ma horumarsanayna ahayd waana la garan waayay bataanba qofkaani qof uu yahay sidii ayaa gabadhii kale inkasta ay yani noolaatay oo Ilaahay cimri siiyay laakiin qofkii gabadhaas nibkaas u geystay waa la waayay kaliya waxa waay labadan qadiyadood isku keenay يعني لهال ميل أي كان عادي قبل أن كله كيتي لانكر ماشى لقى سوق عادي إيه ماشى كويا السكول كاني أد أي سكولو يعني 2-3 minutes أو صعد ويا أوكي لكن وح ولي بيسبدلين أو ولي بقصة عن part 2 أيه كسي يعني هنا كسي أحداث بدن أو كحساب بدن وأنا أكيد فيديو كحيوان هذا قدر كداون سنو كومنتيجا بينك تاو صداو إن شاء الله كل سجال بقول سجال شن إيه لحدي مركي هاد بشي صدحات سجالية توبن كذي قبل ليرادو شارون كار ayaa waxay saaxiibteed oo iskuulka ay sida dhiganayeen uga sheekaysay ma xasuusataa bay ku tiri magaaladeena gabadhii Kitty Lanker la dhaxayay oo dhimanaysay 4 sano ka hor oo la weysan yahay ilaa maanta qofkii dilay ma taqaano ma xasuusataa qadiyadaasna caan ayay magaalada ka ahayd haabay ku tiri waa xasuusta waxay ku tiri sidii loo dilay iyo qofkii dilay iyo habkii loo dilay iyo gabadha meydkeeda waxa meeshaas geeyay intoo dhanba anigu waan ogahay كاس قلت أوكي إيجي شكل سيلو دلي وعقول تري أنت صجرة من دلو دلي قبل أني حفلة أي كجرتي سان دي قضية بارتو ويدين كمسي هور دعاي لكن كو إلا أي دمات أي وشاتي سيدي لو دلي أي كرابتي قف كي دلي قبل داسي كيتي ران ضبوقة يدعي كيتي رانكلر قف كي دلي كليا أي كرابتي قبل شارون كي 4 سنة كهر نوحي جرتي 10 iyo 2 jir ay ahayd 10 iyo 2 sano kaliya ay jirtay Sharon maxaa baray qofkaas dilay maxay u hal weeday 4 sano dhan oo keenay inay maanta saaxiibteena xan ahaan la ugu sheegtay maahane wax kale ama sida police la gaarsiiyo ugu ma aysan sheeganin gabadhaani qisadeeda iyo labada qadiyadoodba waxa xalin doonta gabadhaani yaa way marka qofka dilay qisada part 2ga video xiga hadii aad gadaal ka daawanaysid qaybta commentiga ka daawo insha Allah waxaan rajaynayaa asxaabtaada u share gareysid like noo saartid fi amaan Allah